però le ricorrenti erano sempre le stesse: ammazzare, ammazzare, ammazzare. Toto Riina oo loogu yeeri jiray laadarka laadarada oo dhan ayaa xabsi ku dhex dhintay isaga oo 87 jir ah sanadkii 2017. waxa uu xabsiga ku qaadanayay xukun dhan 26 sano oo xarig ah. waa ninka toos u amray kadibna la fuliyay kiisas 150 dilal qorshaysan ah. waxa uu madax ka ahaa kooxda maafiyada Talyaaniga ee Cosa Nostra, waxaana uu baxsad ahaa muddo rubac qarni ah ka hor intii aan la soo qaban sanadkii 1993. waxaa xitaa la sheegay in isaga oo xabsiga ku dhex jira uu soo amray dilal kale oo dalka intiisa kale ka dhacay. Toto Riina waxa uu ahaa soo majeeste aan in yar oo naxariis iyo jixinjix ah lahayn. sheekadan ayaanu ku eegaynaa taariikhda hogaamiyihii maafiyada Toto Riini iyo kooxdiisii Cosa Nostra ee dalka Talyaaniga. marka hore aanu milicsano kooxda maafiyada ah ee Cosa Nostra, qaabkii ay ku asaasantay, ujeedooyinkii iyo mabaadi'dii ay marka hore ku shaqayn jirtay, marxaladihii ay soo martay, iyo sida ay marka dambe ku noqotay koox halis ah Talyaaniga iyo meelo kale oo caalamka ahba galgishay. kadibna waxaanu si dulmar ah u eegi doonaa taariikhda hogaamiyihii kooxdaasi ugu saameynta badnaa, Toto Riino, iyo halkii uu ku dambeeyay. maafiyada Cosa Nostra waxaa la aasaasay qarnigii 18aad ee miilaadiga, waxaana laga aasaasay jasiiradda Sicilia ee dalka Talyaaniga, iyaga oo markii hore ujeedkoodu uu ahaa in ay jasiiradda ka xoreeyaan maamulkii Faransiiska oo halkaasi haystay. waxay soo urursadeen dhalinyaradii ka soo jeeday qoysaska saboolka ah ee jasiiradda ku noolaa. waxay u sheegeen in ay dhulkooda cadowga ka xoreynayaan, isla markaana dadka masaakiinta ah beerahoodii u difaacayaan. taasi waxa ay ahayd aragti in badan soo jiidatay oo ay kooxda uga mid noqdeen, isla markaana dagaalka dhankoodii ka galeen. laakiin markii dambe ayay Cosa Nostra u xuubsiibatay koox burcad ah oo fulisa dembiyo waaweyn oo abaabulan. kooxdu waxa ay soo martay marxalado iyo xaalado kala duwan. gabood fallo waaweyn ayay ka fulisay dalka Talyaaniga iyo meelo kale oo Talyaaniga ka baxsanba. dilal, kufsi, jirdillo, afduub, ka ganacsi daroogo, ka ganacsiga xubnaha bani aadamka, soo daabicid lacago been abuur ah, baad aruursasho, tahriibin, cabsi gelin iyo argagixin. dhammaan falalkaasi guraacan waxa ay u sameynayeen in ay noqdaan koox fulin leh iyo in ay hanti ka tacbaan dembiyada ay geysanayaan. markii kooxda la aasaasay iyada oo aan muddo badanba ka soo wareegin, waxa ay markiiba noqotay tan ugu saameynta xoogan kooxihii maafiyada ee dalka Talyaaniga ka hana qaaday. iyo sidoo kale waxa ay noqotay kooxda geysatay falalka ugu fajacisada iyo xeeladaha badan ee caalamka ka dhacay. Non bisogna mai abbassare la guardia. maafiyada Cosa Nostra waxa ay noqotay imbaradoriyad qarsoon, imbaradoriyad dhisan, nidaam leh, shaqaynaysa balse aan la aqoon, xog badanna laga haynin. shaqooyinka ay qabanayaan oo dhanna ay la xiriiraan dembiyo iyo falal baalmarsan xeerarka iyo qawaaniinta. kooxda maafiyada ah si ay hanti u urursato, u noqoto koox awood fulineed leh, waxay samaysay wax walba oo ay ku argagax gelin karto qulubta bulshada Talyaaniga. waxay la baxeen Cosa Nostra oo ah af Talyaani, taasoo micnaheedu noqonayo waxeena ama waxa aanu annagu leenahay. waxay sidoo kale kooxdu la baxday Black Hand, gacanta madow. kooxdu waxa ay samaysatay nidaam maamul u gaar ah iyo qorshooyin qaabaysan oo ay u diyaariyeen dembiyada iyo gaboodfallada ay fulinayaan. waxaa hoggaanka u qabtay rag mayal adag oo aan wax arxan iyo naxariis midna lahayn. dhalinyaro badan ayay qorteen, laakiin dhammaantood hubka looma wada dhiibin oo lama wada dagaalgelinin. waxaa loo kala ableeyay qaybo badan. qaar waxaa lagu aadiyay in ay ciidan noqdaan, kuwo shaqaale caadi ah, qaar kale in ay basaasiin noqdaan, kuwo waxaa laga dhigay ganacsato waaweyn, iyo qaybo kale oo badan ayaa loo qaybiyay. maafiyadu waxa ay burburiyeen wax walba oo ay danahoodii ka dhex waayeen. waxay laayeen cid walba oo ay u arkeen in ay danahoodii sortaagayaan. caruur iyo ciroole, rag iyo dumar, wax ay cafiyeen ama ay u naxariisteen ma jirin.
heer waxa ay gaarsiiyeen shacabku waxa keliya ee ay ka baqayaan in ay maafiyadu noqoto. rajada keliya ee ay shacabku naawilayaanna in ay noqoto in la gaaro dhammaadka maafiyada. qof kasta in uu naftiisii ku dhaho maalin uun la gaaro ayada oo Talyaaniga laga tirtiray maafiyada Cosa Nostra. ugu dambeyn waxa ay noqdeen awoodda dhabta ah ee maamusha jasiiradda Sicilia. hoggaanka kooxda waxa uu isu soo bedelayay marxalado iyo duruufo kala gedisan. laakiin markii ay ugu dardar xooganayd waxa ay ahayd markii uu hoggaamiye u noqday Salvatore Totorina. Totorina ha rappresentato per molti noi siciliani che Cosa Nostra waxa ay bilowday in ay dagaal toos ah la gasho dawladda Talyaaniga kadib markii Salvatore Totorina uu la wareegay hoggaanka kooxda. wuxuu dhisay oo uu aad u xoojiyay isla markaana hubeeyay dhalinyaradii kooxda ka tirsanayd. wuxuu joogteeyay falalkii ay kooxdu fulinaysay. baqdin gelinta shacabka waxa ay ahayd mid joogto ah. qof kasta waxa uu ku qasbanaa in uu afkiisa qabsado ama uu kooxda la shaqeeyo. sanadku markii uu ahaa 1992 burcadii uu Rino hoggaamiyaha u ahaa waxa ay dileen dembibaarihii lagu magacaabayay Giovanni Falcone, xaaskiisa iyo 3 ka mid ahaa ilaaladiisa. wuxuuna falkaasi ka dhacay meel ka baxsan magaalada Palermo iyaga oo dembibaarihii gaarigiisii ku qarxiyay miino ay dhulku uga aaseen. 2 bilood kadib waxa ay haddana khaarijiyeen dembibaare kale oo gacanta ku hayay kiiska maafiyada kaasoo lagu magacaabayay Paolo Borsellino iyo 5 ilaaladiisa ka tirsan kadib markii ay gaarigoodii ugu rakibeen walxaha qarxa isla markaana ku qarxiyeen. Totorina waxa uu ahaa ninka xoojiyay ee sida aadka ah u labalaabay howlihii guracnaa ee kooxda. Totorina waxa uu ku dhashay magaalada Corleone ee jasiiradda Sicilia sanadkii 1930. wuxuuna ka dhashay qoys beeraley ahaa, sabool ahaa oo ka tirsanaa bulshada dabaqada hoose ku nool. aabihiis waxaa la dilay isaga oo 14 jir ah. markii uu 19 jir soo gaaray wuxuu ku biiray kooxihii maafiyada ee dalkiisa ka jiray isaga oo geystay dilal badan si uu u noqdo qof muuqda saameyn leh isla markaana uu boos fiican uga dhaxelo kooxihii maafiyada. wax yar kadib askarta dawladda ayaa howlgal ku qabatay. waxaa la saaray maxkamad. sidaasna muddo 6 sano ah ayuu xabsi ku qaatay dhalinyaranimadiisa. markii la soo daayay waxa uu dib ugu noqday kooxihii burcadda ahaa ee uu la shaqaynayay. markasta waxa uu ku dadaalayay in uu hoggaamiye u noqdo tuugada oo uusan xubin kaliya ka ahaanin. waxa uu rajaynayay maalin uun in uu gaaro heer ah in ay tuugada kale ku shaqayso amarkiisa iyo go'aano uu isagu soo gaaray. riyadaasi waxa uu u rumowday sanadkii 1974. xilligaasi waxaa xabsiga la dhigay nin kale oo madax ka ahaa kooxdii burcadda oo uu ka tirsanaa. sidaas darteed waxaa loo baahday qof ku habboon oo buuxiya booskii hoggaamiyaha. isla markiiba waxaa hawshaasi isu xil saaray Totorina oo qabtay xilkii hoggaamiyaha maafiyada. intii uu madaxda ka ahaa waxa ay kooxdiisu noqotay tan ugu awoodda badan. waxay heshay dhaqaale aad u badan waxaana howlihii ay qaban jireen ka mid ahaa dhoofinta daroogada hayroonka loo yaqaano taasoo la geyn jiray dalalka ku yaala waqooyiga Ameerika. wuxuu u muuqday nin dardargeliyay oo labalaabay shaqada kooxda. sidaas darteed waxa uu soo jiitay rabitaanka xubnihii kale ee kooxda ugu sareeyay. Rino wuxuu ahaa kan ugu arxanka daran hoggaamiyaasha maafiyada oo dhan. dadka uu nafta dhaafiyay iyo kuwa uu naafeeyayba tiro laguma soo koobi karo. dadka uu dilkoodii amray waxaa ka mid ah xaakim sare oo ay u socotay dhageysiga dacwadda maafiyada. gaari ayaa bam loogu rakibay. sidaas ayaana lagu khaarijiyay. saxafi u dhashay Talyaaniga oo u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Talyaaniga waxa uu yiri Totorino xubin naxda jirkiisa kuma oolin. wuxuu geystay gaboodfalladii ugu foosho xumaa taariikhda maafiyada. Rino dadka uu laayay xitaa waxaa ka mid ahaa tuugadii kale ee kula loolamayay dambiyada. taasna waxa ay keentay in qaar badan oo ka mid ahaa burcadii uu baacsanayay in ay la shaqeeyaan booliska. waxayna tuugadaasi bixiyaan cadeymo ku filan oo isaga loogu soo oogay dambiyo. Pubblico ministero per la corte si potrebbe anche mettere fine. Il pubblico ministero è d'accordo per chiudere, mi pare che ormai si sono consolidate le situazioni. Esatto. Io lo devo dichiarare bugiardo in quest'aula non una volta, più di una volta, 10 volte. markii la soo xiray sanadkii 1993
kooxdiisu waxa ay weeraro bambaanooyin ah ka geysteen magaalooyinka Rome iyo Milan iyaga oo ka caraysnaa xariga hogaamiyahooda. Rino maalmihii u dambeeyay noloshiisa fariin laga duubay waxa uu ku sheegay in uusan marnaba ka qoomameynayn isla markaana wax shalayta ah ka qabin wixii uu soo sameeyay, sidoo kalena go'aankiisii aan waxba laga bedeli karin xitaa haddii lagu xukumo xabsi 3,000 oo sano ah. ilaa uu ka geeriyooday waxa uu ahaa qof ku adag dambiyadiisa, qof aan dhibic naxariis ah qalbigiisa ku jirin. waxaasi oo dhan waxa uu u sameynayay nacayb uu dawladdiisii u qaaday yaraantiisii, xilligaasi oo la dilay aabihiis, dhul beereed ay noloshoodii ku tiirsanaydna xoog looga qaaday. kooxda maafiyada ah Cosa Nostra oo uu hogaamiyaha u ahaa wuxuu u arkayay meesha uu ku aarsan karo kuna fulin karo wax badan oo go'aanadiisa ah. isbitaal ku yaala xabsiga dhexdiisa ee magaalada Parma ayaa la sheegay in Rino uu muddo ku jiray isaga oo sariirta ku soo aruuray. waxaa la sheegay in uu u dhintay xanuunka kansarka, waxa kale oo uu la liitay xanuun xagga wadnaha ah. markaasi uu geeriyoonayay waxaa ifka uga dambeeyay xaaskiisa Antoniati iyo 4 caruur ah oo uu kamid ahaa wiilkiisii ugu weyn Giovanni oo xabsiga ku qaadanayay xukun xabsi daa'in ah kadib markii uu 4 qof gacantiisa ku dilay. weli kooxda si kama dambays ah looma tirtirin, laakiin waxaa ka adkaaday oo saameyntoodii hakiyay howlgallada joogtada ah ee ka dhalanaya qawaaniinta adag ee ay dawladdu u dejisay in lagula dagaalamo. xaaladuhu iyo dhacdooyinku ha kala waqtiyo duwanaadeen, meelaha ay ka kala dhacayaanna ha kala fogaadeen, laakiin mararka qaar way isu ekaan karaan. muhiimaddu waa in cashar laga kororsan karo, xal wax ku ool ahna laga dhaxeli karo. intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa sheekadan tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doono. waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo, amaana Allah.